maanta muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay fanaaniintii ama huballadii waaberi. Hubalada waaberi waxay ahaayeen qaar raalli gelin jiray mar kastaba bulshadooda Soomaaliyeed. Meel kastoo adduunka ka joogaanba waxay ahaayeen qaar u heelan oo mar kastaba u soo bandhiga fikradooda. Kadib fanaaniinta waxaa la soo darsa ama abwaaniinta xanuuno kala duwan. Xanuunada oyna awoodin dhaqaale ay isku kaafiyaan ama noloshooda ama xanuunkan ay la soo darsay dhaqaale ay kaga hortagaan. Ummadda Soomaaliyeed mar kastaba ay u heelan yihiin ay u heesaan marka ay wax uga baahdaan waa markan oo kale. Waayo caalamka albanka uu fanaanku soo saaro waa mid aad uga helo dhaqaale aad u weyn. laakiin fanaaniinta Soomaaliyeed waxa ugu heestaa dadkooga free ama lacag la'aan. hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed maadaama fanaanku uu xanuunsado oo dadka ugu heesi jiray wax lacag la'aana dhibaatada soo dirsta markaa waxa wanaagsan in aanu gacan qabanno oo nu wada istaagno. ummaddan waa ummadeennii, waa fanaaniinteennii, waana huballadeennii. mar kastaba ogsoonow walaal, adiga qof aanad wax ka dhigin waxba ma noqdo. fanaaniinta Soomaaliyeed meel kastoo joogaan adduunka waa ku dhiban yihiin, sababtoo ah waxaa kalifaya albanka ay soo saaraan kuma xidhaan lacag. bulshadooda waxay ugu soo bandhigaan si friya. fadlan la xidhiidh Aamino Dhool, waa fanaanad qaran oo haddana ku xanuunsan magaalada Ingiriiska. hase ahaatee Aamino Dhool waxay ku dhalatay asalkeygii halkii keli iyadoo la jiran ama la xanuunsan. kadib waxaa ku dhacay xanuun xagga beerka ah. beerka ayaa laga beddelay. kadib waxaa loo sameeyey in lagu dhaho haddii beerka lagaa beddelo waxaa kugu imaan doontaa in ay kelida hadda aad haysatid ay istaagi doonto. nasiib darro waxaa ku dhacay dhibaatadii uu dhakhtarku sheegay. fadlan Soomaali baanu nahay, waa inaannu caawinaa fanaaniinteenna maadaama ay mar kastaba inoo heelan yihiin oo inoo soo heesaan ayna inaga qaadin. huballadeennu waa mar kastaba qaar inaga fikira sida ay nooga fikiraan. fadlan u sheergaree muuqaalkan si loo caawiyo walaasheen Aamino Dhool. fanaaniintu way kala duwan yihiin, hase ahaatee dhibaatada maanta ugu weyn ee haysataa waa Aamino Dhool. fadlan sii sheergaree muuqaalkan si loo caawiyo Aamino Dhool. aad ayaad u mahadsantihiin. kalaala xidhiidh lambarrada shaashadda ka muuqda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.